wiilka Argentina Lionel Messi ayaa markii lixaad ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee FIFA Ballon d'Or oo ka qaaday xidigaha Virgil van Dijk iyo Cristiano Ronaldo. Messi ayaa 10 sano ka hor abaalmarintan markii ugu horeysay qaaday 2009, laakiin xalay ayay u ahayd markiisii lixaad inuu hanto abaalmarintan. xidiga Virgil van Dijk ayaa soo galay kaalinta labaad ee abaalmarintan, halka CR7 uu galay booska saddexaad ee kala sareynta. Ronaldo qayb muusan ka ahayn abaalmarintan Ballon d'Or uu aaday xaflad ka dhacaysay magaalada Milano taa lagu abaalmariyay isagana inuu noqdo xidigii ugu wanaagsanaa Serie A sanadii aan ka soo gudubnay. Lionel Messi ayaa meesha ku gudoomay abaalmarinta kadib ayuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku guuleysto abaalmarintan. FIFA The Best ayuu hor ugu soo guuleystay Lionel Messi, halka Virgil van Dijk isna uu soo qaaday abaalmarinta xidiga Yurub. taa ka dhigan labadii xidig inay hore u soo heleen abaalmarin, laakiin xalay mar kale Lionel Messi la caleema saaray inuu yahay kan dunida ugu wanaagsan markii lixaad. ma jirin xidig helay 6 jeer abaalmarintan. Ronaldo ayaa min 5 jeer ay wada wateen Lionel Messi, laakiin xalay ayuu dhaafay ciyaaryahan ninka lagu magacaabo Lionel Andres Messi. Luka Modric ayaa sanadii aan ka soo gudubnay ku guuleystay abaalmarintan, isaga ayaana keenay xalay abaalmarinta qiimaha badan ee Ballon d'Or gacantana ka saaray Lionel Andres Messi ee kooxdiisa kula guuleystay horyaalka dalka Spain sanadii aan ka soo gudubnay. wiilka Argentina ahna hogaamiyaha kooxdan iyo dhammaan taageerayaasha dunida ku tilmaamay inuu yahay mid aan waxba laga qaban karin, kubadiisu ay tahay mid ay la fajaceen kadib markii Atletico de Madrid usbuucan uu ka dhaliyay gool caqabad leh dhamaadkii deesha. Leo iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa ayaa xafladda ku sugnaa kuwa farxad ee la damaashaaday markii loo doorto aabahood inuu yahay kan ugu wanaagsan. dhanka hablaha waxaa helay gabadha lagu magacaabo Megan Rapinoe iyadana ku guuleystay gabadhii ugu wanaagsaneed abaalmarinta dhanka hablaha.